شيء ugu horeeya bisha 12 islaamka fadli fara badan bay ay islaamku u sheegay marka fadligeega maxaa kamid ah hadii aad soo koobto bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullah tobanka maalmood ama tobanka habeenay ugu horeeya shahru dhul hijja wa afdalul layali wa habeeno tobanka habeena sanadka tobanka dharaare sanadka ugu fadliga badan ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ku dhaartay a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin 'ashr wash shaf'i wal watr ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhaartay wax qiimo leh weeyaan tobanka dhul hijja oo laba bilood oo ka horeeyay iyo tobankan saddexda marka la isku daro laba bilood iyo tobankan maalmood marka la isku daro la yiraahdo ashhurul hajj شوال أو رمضان كدم بيسي ذو القعدة أو كحكتي iyo tobanka shawaal tobanka dul xijja ugu horeeya intaas maxay toole waxa la yiraahdaa ashhurul hajj bilihi hajka haddana tobankana mudnaan gaar ah la siiyo dadku marka laba ay u qaybsamaan dad iyagu jooga xajki oo gudanaya waajibaadka acmaashi iyo nusuki xajka iyo dad ilaahay aanu u qorin sideen oo kale waa kan jooga marka cid walba waxay leedahay amal gaar ah ayay leedahay dadka aan xajka aan joogin haddana tobanka ilaahay subhanahu wa ta'ala soo gaarsiiyay dhikri fara badan quraan akhris fara badan soom intay ka karaan inay soomaan istighfar iyo tawba intay la yimaadaan i'tikaafun fil masaajid in masaajida ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u bataan yaani waa xilliyada ilaahay aadka loogu dhawaanayo subhanahu wa ta'ala qofka mu'minka sidii bishii ramadaan oo kale la rabo inuu tobankan si gaar ah aanay qaflad aanay ku dhaafin dhoohanaan aanay ku dhaafin ula yimaado afdal al-a'mal inuu maxay ula yimaado oo qofku isagu aan xajka aan joogin qofka xajka joogaana a'maal iyo arkaan kale ayuu leeyahay saaka la khayran sheekhna marka tobanka maalmood ugu fadliga badan mise tobanka habeen ugu ay noqon tobanka maalmood ugu fadliga badan quraanka oo layaalin 10 waa tobankan weey marka de sanad ku dhan ugu fadli badan naam afdal a'waam marka waxa la yiraahdaa laylatul qadriga soo tira lahaa waa ta ugu fadliga badan sida culimadu ay u kala saaraan taa waxa la yiraahdaa habeenaday ugu fadli badan tahay tobankana maalmaha ahaan ay ugu fadli badan tahay bale oo halkan waxa ku jirta maalintii Carafa yawm Carafa ku jira ayaa tobankan ku jira soddonkii ramadaan laylatul qadri ayaa maxay ku jirta mid walba maalin gaar ah ayay fadligeeda ay leedahay jazaak Allah khayr sheekhna aad wad maadsantahay marka dadku laakiin marka la isku soo wada duuba amalka habeenkii la qabtay amalka maalintii la qabtaa labaduba fadli fara badan labadu fadli gaar leeyahay jazaak Allah khayr sheekhna aad wad maadsantahay sheekhna misaan marka dad waxa ku jira in xajki la tago oo xajki amaashi dadka xajka tagay xaj hawli xajka qabtaan maxay qabanayaan dadkii xajku maalimahan dadkii xajka tagay ilaahay subhanahu wa ta'ala u qoray saddex qaab oo xajka loo guto ayay sunnada nabi ku soo aroortay sallallahu alayhi wasallam culimada muslimiintuna ay u kala qaybsameen xaj la yiraahdo xajul ifraad iyo xaj la yiraahdo xajul qiraan iyo xaj la yiraahdo xajul tamattu saddexda nooc mid kamid ah ayay xujaaju ay xiranayaan marka ay maxay ay baxayaan saddexdaas oo kala ah qofku inuu niyeysto xaj kali ah labbayk allahumma hajjan xaj buu niyeystay xajkaas ifraad baa la yaabaa xajkaas uu dhammaystiranaya maanta markuu manaasigta xajka markuu dhameeyo ayuu hadduu doono gadaal cumro ku darsanaya ka laakiin maxaa la yiraahdaa xajul ifraad oo waa kii kali qofki inuu xaj wax hawl kali qabto xajkaas ku kaliyoobe midna waxa la yiraahdaa qiraan حجكي عمره بس كدر سنة لبيك اللهم حجا وعمرة بولي حج عمره أيان بس كدر سنة بمحتول أيولي مدنا وحلا إلى هذا حج تمتع مركو روح نيسنا يا عمرة حجكي وحتجا يا بيت الله الحرام وحجودنا يا أعماشي عمرة مركو لما يسترته ها يودي أبو كورو وحلالوبو دركيسي بس كحرنا يا بس كجوجا إلا ما أنت سديدا ذي الحجة يوم التروية الله ينادو هالكاس وضن حج كله وحرنا يا مركا عمره حدي وكت متوع وكل راحيستي أنت عمره أنت حج كودا حيستي أيوه راحيستي أساسا مقعد تمتع وراحيستي فما تمتع ذي وك
intaa dhulkaa maalmood buu iska tamatucaya oo loo ogolya wax xalaaloobay kadib haddana xaj saddexdan nooc ayay fuqahadu xajka ay u qaybiyeen mawaaqiidkiiba ayaa isna soo gala oo waxay qabanayaan mawaaqiid zamaani ah iyo mawaaqiid makaani ah mawaaqiidka zamaani waa tan aynu sheegnay waa shawaal iyo dulqicda iyo tobanka ugu horeeya ee dulxija ashhur xaji baa la yidhahdaa midna waxaa la yidhahdaa mawaaqiid makaaniyo koonfur ama waqooyi ama bari ama galbeed hadda meesha aad ka imanaysid nebi maxamed 4 meelood ayuu yidhi halkaa cidda ka timaadaa halkaa markay soo marayso xajkii ha xidhato innaga iyo yaman baa isku meel ahoo yalamlam meel la yidhaa la marayo ayaa xajkii la xidhanaya ama cumradii la xidhanaya saddexdan aan kuu sheegay mid ka mid ah ayaa la xidhanaya dadku badanaa de lugaha ma maraan luge dadku badanaa waxay ama badbay ay maraan doon bay ku xajiyaan ama diyaarad ayay ku xajiyaan bayloodka diyaaradda wada ayaa u sheegay xujaajta diyaaradda saaran inay soo kor istaageen mawaaqiidkii makaaniga ahaa markaasuu xidha yidhaahdaa halkaasaa laga sheegaa marka diyaaradda korkeeday ku xidhaan waana suurtagalo afdala qofku gurigiisa markuu ka sii baxayaba inuu sii xidho oo isagoo xidhan oo dharkiisii xidhan oo xajkii xidhay ama cumradii uu maxay u dhaqaaqo marka arinka koowaad xujaajtu ay la imanayaan waa niyadii ixraamkii waa xidhashadii xidhashada waa inay noqotaa zamankii xajka ama ay noqotaa makaankii xajka kadibna nooca xajka uu xidhanaya waa maxay intaa ma sheegnay intaasna horta laga raba inuu sameeyo intaa ma sameeyo ma dhaqaaqay wuxuu gaarayaa baytullahi tabaaraka wa tacaala baytullahi aragga uu arko salaan iyo salaamullahi waa salaamaya beytkii kadibna kacbadii ayuu xaggeeda u dhaaqayaa 7 tawaaf ayuu maxatole ayuu samaynayaa 7 tawaaf ayuu samaynaya hadduu u dhowaado dhagaxa xajarul aswad fiican si uu u salaamo oo u istilaamo xajarul aswad hadday u suurta gasho haddaanu zaxmad dadka zaxmadaynayn ama dhib aanu maxatole ka baqaynin afdal lahu inuu xajarka aswadka iyo ruknul yamaan labadaba inuu istilaamo waa soo arorto waa sunna qofkii kala qofka aan karaynina gacanta ayuu taagay uu tilmaamaya gadaal markuu agis allahu akbar markaasuu dhaafaya wuxuu ka bilaabaya markaa xajar aswad baa laga calaamad baa ku taala ay ugu tala galeen dadka maamula halkaa xajar aswad musaa ugu beegan yahay halkaa markuu istaagu gacanta bidix ayuu xaggiisa eegaya uu salaamaya uu dhamaystiraya ma soo gaaray waa mar wuu wadaya ma soo gaaray waa laba wuu wadaya ma soo gaaray 3 7 sidaa ku waa tawaafkii kaas tawaafkii saama u dhamaystay 7dii agtiisa waxaa ah maqaamu ibraahim واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم قداشي أيو كنتو كنيا مقام إبراهيم أيا أود حيا سيا كعبضة سيا كعبضة حود حيا مقام لبر كعبضات أيو كنتو كنيا سيدو النبي صلى الله عليه وسلم حلو كنتو كنيا حتى يتهاي حلق صلاة كور لو قادنا كربو وقاد هبين هدوتو كنيا عشاء يا مغرب يا فجر وكان هذا كسب بيقط حلق هذا كان قراءة لبر ركعات كربو وقاد هذا حلق الظهر يا عصر أي تهاي وحلينا صلاة هوس تودعنا صلاة هوس أيوه قل يا أيها الكافرون يقول هو الله كنت كذا النبي كسرنا صلى الله عليه وسلم وتكذي حق زمزمك وقدم بين مقام إبراهيم أيوه دقاق وكبني أنتوا كأبي كربيا زمزمك أيوه إن الله أنتوا كليه كبر سنكروا أيوه كعب ماء زمزم لما شرب له هل كاسوك دقاق دينا هو دقاقي السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم حق الصفو يستاقيا بورتا القبيس أيا الله إله بورتا سدول يستاقيا كعبدو سوء إيقيا مركب بورتا وكرو حق كعبدا بيت الله بو أركيا كسو دعاء سنيا إلهي بريا سبحانه وتعالى لأن بورتا كسو دعاء حق مروة أيو داقيا ومر marwo iyo safa iyo marwo in yar baa u dhaxayso oo la yar gucleeyo la ordo calaamad bay u sameeyeen laba laydhoo cagaar ah ayaa ku yaala marka bilowga iyo dhammaadka waa la ordaya dumarku malaha raggaa leh raggaa ordaya masafa ilaa marwa marwo ilaa safa laba safa ilaa marwo 3 marwo ilaa safa 4 7 sidaa lagu xidhaya mar waa lagu dhammaanaya safana waa lagu bilaabaya deedna halkaa markuu dhammeeyo hadduu cumro ahaa oonu cumro keliya haddii uu xidhay markuu marwo dhammeeyo ayuu timi iska xiiraya amba gaabinaya muxalliqiina aw muqasiriin hadba tii uu doono muxalliqiinta fadli badan oo nabigu u duceeyey sal slam 3 jeer buu u duceeyey in la xiiro oo la dhukuro
saddex jeer buu ducay allahuma arxam almuxalliqiin allahuma arxam almuxalliqiin markaasi mar kasta ku celiya markii dambe uu almuqasiriin dadka gaabiyana allahu naxariisto halkaa markuu saa u dhameeyo acmaashii cumradu waa u dhantahay waa xalaaloobahayaa saasuu ku xalaaloobay qofkii waa haddii cumro uun uu socdo markaa intaasi inta imika wadna dhex geysa imika si fiican baan u daawanay qofkii hawshii wadaa intaasi intay noqonaysaa waa imise saacadood waa imise hadba waxay ku xidhan tahay qofka juhdigiisa iyo caafimaadkiisa iyo meeshu zaxmad hadday tahay iyo sida ay tahay cumrada tawaafka haddii la isku dardaro 2 saacadood qofka kama badna sacyiga haddii lagu darana saacad kama badna waa intaa wey intaa ma dhameeyey qofkii wuu xalaaloobaya hadduu mutamatic ahaa maalan mutamatican ka soo qaado inuu ahaa qofku wuu xalaaloobaya cumradii buu dhamaystay timihii buu iska xiiray ama wuu gaabsaday dharkiisii buu caadi iska xiranaya meeshii loogu talagalay inuu dogo ayuu iska degayaa goormuu sugayaa maalinta 8aad ee xajka ayuu sugayaa maalinta 7aad ee dulxaja imaamka muslimiinta khudbadeynaya ama cidda uu u igmaday ayaa khudbadeynaya bacda duhr buu khudbadeynaya khudbad fardi ah oon laba ahayna khudbad keli ah oo ummadda laleeyahay beritoole waa yowmu tarwiya u diyaar garooba xaggii mina loo dhaqaaqayaa acmaasha mina la qabanaya laga sheekaynaya intaasuu ka sheekaynaya imaamku ama qofkii loo ciduu igmaday isagu maalintii 8aad baa la dhaqaaqaya halkee loo dhaqaaqayaa mina ninkii mutamatica ahaa ee tamatucay uu xidhanaya yowmu tarwiya uu xidhanayaa حج إلى عمرضي وكحلا لوبي لبيك اللهم حجا كي مفرد كهانا دوبه وحريه كي قارن كهانا دوبه وحريه لكن متمتعون بقى مر لبعض إنه حده وحلو دقائق يا منع وما أنت 8aad يا لو دقائق يا بعد الفجر يا دقائق يا والله كاسة الأسبوع تجيا تندوين بالله عدة مال بالله تلاقي هالك وحلو تكنه وما أنت 8aad وحلو تكنه يا ظهر عصر مغرب عشاء iyo maalinta 9aad ee dulxija fajrkii subaxii 5 saacadood ma ku tukanaysaa 5 saacadood lagu tukanaya halkaas lagu cibaadeysanaya wixii maxay toolo sahaydii waa la qaatay cibaado iyo fadl iyo dhikri ilaahay baa lagu jira marka cibaadooyin cayiman oo la qabanaya ma jirto imana joogaaba cibaado cibaadooyinka kale la qabanayana waa markaa waa imka bilaabmaya laakiin mina la isku aruuraya halka waxaa lagu tukanaya duhur iyo maqrib iyo casar iyo cisho iyo fajr fajrkii ma la tukaday maalintii 9aad ee dulxija ayaa la wada baxaya xaggii carafa ayaa loo dhaqaaqaya furaada boqolaalku malaayiin isku wada dhar ah qaar gaadhiya wata qaar lugaynaya qaar odayaala qaar tukubaya waa la wada dhaqaaqaya إحرامك بالحرية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا الله وذكر قرحك دحيا ملين كلمة الملائكة عبادي المسلمين وما أنت شيطان وقول نحن أنت بديه دم بدافك فرن ويوم عرفة من ملك دقاقي أنت أن عرف اللي جارين مسجد نمرة ayaa la tagay ayaa xoogaa la joogay marka maalinta yawm Arafa waa maalinta dadkii aan xajka tagina ee xaafadiis ka joogay maalinta inaga soom bay inaga inoo sunnaa ninkii laakiin ka joogay ma soomayo namira masjidu namira ayaa la tagayaa shaafiiciyadu waxay qabtaa bacda zawaal Arafa la gaaro macnaha marka duhur kadib duhur iyo casarna lagu tukado تقديم أهان اللي قلت كذا نمرة مساجد النمرة حال قلت كذا كدي بروح على استاجا عرفة عرفة لا تجيا عرفة ماشي اللي استاجابه وعرفة ماشي اللي استاجابه وعرفة ركن يقوم يمسنا حج كنا وعرفة الحج عرفة حج إذا لبا وعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنتم الرحمن مؤمنين تسود دوانيو وما أنتم مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى عتقاء من النار وصمين وما أنتم شيطان كوسجوا أو لبعض أرضية أحسن وصعب وما أنتم تبدأ فربنا إلهي وصيني رحمة الله وما أنتم إلهي الضوء إلهي وبريه سبحانه وتعالى ما أنت والذكر يا عبادة يا تهليل لا إله إلا الله إلهي بالله بريه سبحانه وتعالى قرآن بالآخرنا يا واسج هذا وقف يدالو يرقم أنا وكيار نستمشنا لا بأس لا تمر إلا هالكيل الجوجية إلا قبل كدميو إيه لا جوجية لقمة كنا يا مغرب مغرب هي لقمة كنا ديدنا والله هو بنايا والله دقائق تذكيرا دقائق
marka cadceedu dhacdo dhulku maqrib xilligii maqrib joogo ayaa la soo dhacaa ayaa cinda alghuruubi ayaa la soo dhacaya musdalifa la imanaya musdalifa habeenkaasaa la seexanaya oo maalinta sagaalaad baynu weli ku jirnaa musdalifa maqribkii salaadii lama tukanay dib baa loo dhiganaya jamcu ta'khiir ayaa loo sameeyay maqribkii iyo cishihii baa la isku daraya musdalifa oo buur ka hooseysa carafa laga soo hoobanaya halkaasaa la degaya waa la seexanaya bacda alcisha sunna hadal ma jiro dood lama rabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله صحيح هاولك النبي ما قابل ساس دمر هدي جوغان مش أما رج جلعسن هدي أي جوغان إن يستحضان يجا واجبكم هبينك كلا بركي أيه كا إسكنا عاكلا ومنا إسكتي كرا أنت كلا لكن تعاكتي تمرت له وين يستحضان واي dadka badankoodu markaa way seexanayaan ducafada iyo masaakiinta iyo dadka aan fadhiyi karin awoodda lahayn ayaa ka soo dhaqaaqay halkaasaa lagu tukanaya salaadii fajr maalintii tobanaadee Dhulxijja waa yowmu naxr markaa dhulkii kale way ciidayaan umana ciid baynu nahay dadkii halkan joogay iyaguna yowmu naxr oo maalintii qawraca oo maalintii xajka hawlihii kale carafa ka harsanaa la dhamaystirayo maalinta ugu hawsha badan wey musdalifay waxay ka qaadanayaan 7 quruurux dhagxaan yar bay sii qaadanayaan halkii fajrkii ku tukanayaan musdalifa waa la iska yar sugayaa in yar ba ilaahay la baraya subxaanahu wa tacaala inta ceebto baxayso in yar iyaduna waa la dhaqaaqaya almashcar alxaraam marka ceebto soo baxdo mashcar alxaraam baa la istaagay mashcar alxaraam baa lagu baraya ilaahay badan in badan ilaahay la baraya taagnaan iyo fadhi hadba taag say kuu suurta gasho kadibna waa laga dhaqaaqaya mashcar alxaraamki halkee la aadaya imsa qiyaas ahaan inta laga sagaalka 10 meelaha laga hoobanaya in yar marka la socdo waxaa la tegayaa jamratul aqaba todobadii quruurux jamratul aqaba todoba lagu tuuraya allahu akbar bismillah wallahu akbar bismillah wallah todoba jeer ayaa la tuuraya todobadii midheed todoba ka maxalada arrami ii qabo tuuritaankii jamrada kow labo qofkii hadi iyo xoolo watay hadduu wato mutamatici isaguba qawracayaaba waxa ugu xiga inuu qawraco ramyi waa tuuray qawraci waa qawracay maxaa ugu xiga alxalq وحيريا أما وقابنيا هدول أكريا مركيس هربا أما بدار كف الدينا وحلا يري وحمر مرنا يا مديدة أيوة ساسي ما منه منها شكورنا يا فاليمر الموسى على الرأس سدح راسه اسمرنا إذا محصدح معه قبصومي سدح حوله قبصومي إنه تميح يري توري إنه توري سدح ذا ما توري منو أيوجوجا حولها ما قبطي oo jamradii caqabaha iyo ramyigii ma tuuray deedna wuxuu u dhaqaaqayaa Makka baytullahi alxaraam buu tagay isla duhurka markaaba wuxuu samaynayaa tawaaf la yiraahdo tawaaful ifaada ama tawaaful rukni wax la yiraahdo ayuu samaynayaa marka dawaafkii koobaad ee markii uu soo galay dawaaful quduum baa sameeyay waxa waa kiis dawaafkii lagu soo galay magaalada kii imadkana waa tawaaful rukni baa la yiraahdo todobu samaynayaa هذه وقارن أما مفرد أها مركو يمت طواف القدوم وسميي حتى طواف الركن أما طواف الإفاضة وسمي سعي اللهم عليه وانقرت هذو متمتعها صدق هذا نقصه شيء كأنه هذو متمتعها نينكي أنتو لما يستعمل شيء حاجة حلالي لما يستذكر راح يستيقظ كده من الدبوع هذو متمتعها هي طواف الركن جوا اللي يقول لي سعي جينا ولا يقول لي ما كان يسقوا حل يقول لي لبا طواف iyo laba saci ayaa waajib ku ayaa lagu yeelay ku dhacay si fiican tawaaf ruknigi buu sameeyay 7 jeer wuxuu ku daba tukanaya hadana maqaam ibrahim ayuu ku daba tukanaya hadii saci laga reebay sida mutamaticana sacigii buu sameeyay hadaan lagu lahayna makuu ka soo dhaadhiciyo wuxuu iman doonaa mina maalintii 10aad amaasha saasiyada ku dhamaatay oo waan gartay maxaa ku dhiman 11aad iyo 12aad iyo 13aad saddexdii ayaamu tashriiq la yiraahdo lahaba ku haray minuu joogahaya maalinta 11aad jamaraat saddexdii jamaraat buu soo tuuraya uu soo noqonaya maalinta labaad saddexdii jamaraat buu soo tuuraya uu soo noqonaya hadduu doono maalinta labaad gabalku intaanu u dumin inuu iskaga tago mina faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa gabalku intaanu dumin inuu mina ka baxo qabal haduu ugu dimo mina uu hoyanaya
kaas waa maalintii 12aad maalinta 13 hadduu doono wuu dhammaystiranaya markuu soo sameeyey tawaaf ruknigii markuu soo sameeyey ee uu soo noqday wuu taxallulay iska xalaaloobaya intaa ma isku darsaday waa tuuray ramyigiibuu tuuray timihiibuu xiiray hadigiibuu qowracay tawaaf ruknigiibuu la yimid hadduu mutamatic ahaa sacyigiibuu ku daray minuu ku soo noqday yatamatac waa xalaaloobaya iska dhigayaa dharkii ixraamku iska dhigayaa dharkii kale iska xiranayaa wuu iscadarinayaa saabuun badu doona ku meermeeranayaa ataxallul waa taxallulay deedna wuxuu sugayaa uun ayaamu tashriiqi ayuunbuu sugayaa maalintaa labaad haddii uu ka hormaro waa u banaanta hadduu seexdo maalinta saddexaad minana waa dhammaystirtay deedna markuu intaa dhammaystiro waxaa u dhiman waxa la yidhaahdo tawaafulwadaac mina waa ka yimid xaggii maka ayuu imanaya shaqada ugu dambaysuu qabanaya waa tawaafulwad inuu tawaafo sagootinka wey dhiig baa ka ratamaya hadduu samayn waayo intaa ma tiri maxaa kugu hadhay kitaabilxajigii waxaa ku hadhay xajku arkaan buu leeyahay xajku wuxuu leeyahay shuruud xajku wuxuu leeyahay sunan xajku wuxuu leeyahay dimaa oo 4 dhiig ah intaa ninka isku daray afahma kitaabulxaji waa dhammaan si aad u qiimo badan baad noo dhexgeysa aniga daawadayaashaba dadka aan xajka tegin inay si fiican baan u daawanay iminka meelaha howlaha laga qabanaya iyo waxyaalo aad baad umahadsan jazaak allah khayran laakiin inta badan inkastoo culimadu markay kitaabka xajka dhigayaan ay yidhahdaan xajku waa sidii nin aan magaalo imanoo la yidhi markaad hargeysa tagto masalan halkaana xaafid hiblaayaa la yidhaa halkaana maxay hiblaayaa la yidhaa deedna goordhow ay iskaga dhex daadato ilaa uu hawshii qabto oo uu tago laakiin macluumaad fiican ba jazaak allah khayran macluumaad aad u qurux badan baad nagaysa sheekh almisaan cibaadadii baad inooga warrantay laakiin ahmiyadda hay leedahay in la iskugu yimaado sanadkiiba hal mar ummadda intan leeg ha iskugu timaado muslimiintu hadday ka raso malaha mar bay wada tegi lahayd laakiin intuu ilaahay fursad u siiyey la isku tago ahmiyad nooceeya dadka muslimiinta ha u leedahay saddex qodoba kow horta tawxiidkii ilaahay in la sugo tawxiidkii meeshan waxay meel asnaam iyo dhagaxya lagu caabudo min duuni illaahi tabaaraka wa tacaala markii horena waxay in awwala baytin wudica linnaasi lalladii bibakata mubaaraka gurigii ugu horeeyay ilaahay lagu caabudo ahaa kadibna shaydaan baa dadkii leexsaday asnaam iyo dhagxan baa lagu caabuday nabi maxamed buu ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala waqul jaa alxaq wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa markas tawxiid ayay maka almukarama ay noqotay tilmaanta koowaadee xajku uu leeyahay waxa weeyaan waa sugidda midnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala التوحيد لا دغال الشرك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك له marka aad maxayto ihraamka qofku markuu xarmoodo talbiya ku xigta talbiyadu waa maxay labbayk allahumma labbayk rabbo adiga kaliya rabbo baan ku maqlayaa way waxaad ka baxaysaa hawadaadii naftaadii caadadaadii curfigaagii taqaaliidkaagii ayaad ka dhex baxaysaa tatajaradu lilah saad marada u dhigtay wasiirkii khafiirkii taajirkii faqiirkii aqoon-yahankii jaahilkii dambiilihii caabidkii weligii faaji intiyo idil baa wada labayma kala garanaysid allah wax kala garanay shaygu ilaahay taalacanayaana waa quluubtii marka waa meel ilaahay ugu talagalay seminaar weyn kii ramadaanta oo kale ilaahay ugu talagalay uu leeyahay ka soo baxa caadaadkaad lahaydeen kibirkii isla weynidii aad lahaydeen ka soo baxa dhaqankii kala sarreynta aad lahaydeen ka soo baxa addoonnimo ilaahay u qarsana marka tallaabada koowaad ee xajka ummadda nabi maxamed yahay waa maxay waa suginta tawxiidka ilaahay labo tilmaamta labaad ee xadiis laga qaadanaya xajka ee tababarka uu yahay waxa weeyaan sinaanta dadka man tawaadaca lilaahi rafacahu allah qofka ilaahay dhulka isku dhiga ilaahay baa kor u qaada qofka isla weynaadana qasamahu allah ilaahay dhabarka jabiya aqoontaadii shahaadooyinkaagii iyo wasiirnimadaadii waxaad iyo idil baad meel dhigaysaa madaxweynenimadaadii xataa dhagaxaasaad seexanaysaa musdalifa xataa meel la seexda male musdalifa aan ka sheekaynay waa quruurux dhagax yar baad soo qaadanaysaa mara yar baad ku duubanaysaa madaxana ma qaaranaysid ninka haddaad tahay halkaas bacad cidla ah aa la seexanay limaada tajarudan lilaahi tabaaraka wa tacaala godkaasayna la dhigayaa halkaasaynu ku dambaynaynaa ciidaasaynu geli doonaa استعدوا وديار قروبة
markaa maxay u tahay qofkii naftii baa loo laylinaya oo loo sii tababaraya qodobka saddexaad ee xajka ilaahay subxaanahu muslimiinta ugu talagalay waxaa weeyaan inay danahooda ka wada tashadaan atacaawun cala albiri wataqwa maxaa ka dhexeeya ama ha noqoto dhaqaale waliyashhaduu manaafica lahum ama ha noqoto qadaaya siyaasiya maxaa maanta dhibta hortaala cadowgoodu waa ayo oo halkaa imaamka ama mansuubkiisu uu u sheegayo ariyaa inagu maqan haddii eebuu ku isku furnaanta xuduudooda iyo kala qobqobay inay ka xoroobaan meesha uu yimaado iiraanigu iyo hindigu iyo bakistaanigu iyo jaynuhu iyo muslimka calayaanka iyo afrikaanku iyo indonesiyaanku ummada hindida laatiinku ay isku wada yimaadaan dhammaantood arkaysid miyaanay ku وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم bal taasoo haddaba ka waran 3 milyan ama 6 milyan ee sanad walba isku yimaada loo dhiibo la xambaarsiiyo sidii nabi maxamed xajatul wadaa uu xambaarsiiyo fariin oo qof kasta la yiraahdo rasuulullaahi baa tahay markaad noqotid meesha aad ka timid tuulada magaalada dadka aad ka timid xil baad qaatay xil diineed oo caqiido iyo tawxiid ah xil diineed iyo mujtamac oo sinaan iyo walaalnimo ah ilaahay iyo aakhira xasuus iyo qabar iyo xabaal u diyaar garow ah ummadaasoo sinan oo tacaawun ah intaasaad mas-uul ka tahay warwareega xajka iyo dhagax tuurku waa nusuki iyo acmaashi midhaha ay la rabo in laga cali bin cumar bin khataaba dhagaxii madooba isagoo u dhow oo rabo dhunkado ayaa wuxuu yidhi wallaahi waan ogahay dhagax inaad tahay dhib iyo dheef waxba iima haysid kuma dhunkadeen waxbana kuguma faleen laakiin nebi maxamed baan arkay oo ku dhunkanaya saasaan kuu dhunkanaya alitibaac qofku inuu dhaqan u lahaado inuu raaco muxuu nebi maxamed yiri sal maxaan dhagax u tuurna maxaan musdelifo u seexanay maxaan halkaa 7 u tuurana ma 4 ama 3 iska tuurno limaada ha caqlaaniyiintii aaway sunna la dagaalankii aaway ma yidhaahdaan maxaa 7 loo dawaafaya ma 2 jeer la dawaafo maxaa loogu daba tukan maxaa keena sacyiga ma la iska daayo ها ليش؟ لأنه محمد إن أمره يريد خذوا عني مناسككم هدي لقيت تجانا ساوسكم بربر أما فاسد بون نقن أما باطل بون نقن أما ديك بكرة تمي وأنا ديك أفرتي ديك مشيء جنني أي كرة تمي يا إنه فساد على الغيابة قفك حجك استاجوا عرفه استاجوا ويابا ينبه ويابا إنه حجك وقف هذا خلاص باطل بون نقن يا حجك إذن أنت صميرن أيا كنا لنا يسوع وحل الربا هذا أنت تماته xajka inta timaada inay noqdaan say ku yimaadeen si aan ahayn ay iyago fariin sida bedelan oo bedelaya oo diin qaaday oo xil qaaday oo xambaar oo dareen oo hammi iyo xurqad leh balka hadaba sanad walba hadii 6 milyan message ka loo dhiibay ka war umada muslimiinta oo umadoodii ku noqonayaan oo dhiig iyago oo dhiig cusubi ku jiro soo gal toobad cusub la yimid oo nabigu yiri waxa soo noqda xajka mabruuki ka yawmi waladatu ummu sidii hooyadii maalintay dhashay isagoo dambi ka bari ah ayuu soo noqdaa miyaanay ahayn weel weyn ilaahay ugu tala galay in la isku meeyo la isku daahiriyo jazakallahu khairan aad baad maasanta sheekh albisaan su'aashana ugu dambaysa xajku ahmiyada uu leeyahay waa jeegtay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xajkii ugu dambeeyay ee uu tagay waxa loo yaqaanay xajatul wadaa ama xajkii sagootiga waayo nabigu wuxuu ka tagay dardaarano waaweyn iyo rukno waaweyn oo maanta inay dadka muslimiintu ku taagnaadaan oo ugu talagal ka tagay marka haddii aad noo soo ururiso xajatul wadaa muxuu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam markuu sidaas oo kale acmaashi xajka u qabtay khudbadii u jeediyay saahid waaya jazakallahu khair waa arrin weyn weeyaan cibra ku jirta darsi baa ku jira imaamka maanta muslimiinta matalayaana waa ku dayasha ugu mudan oo ugu jirta nabi maxamed sidoo ummadii ula hadlay sallallahu alayhi wasallam isaguna inuu isku xilqaamo oo ula hadlo nabi maxamed sallam xadiidku wuxuu ku jira xadiidka xajatul wadaa sahih muslim buu ku jira jaabir ibn abdullah baa soo warinaya riwaayad kale oo kutubta ku jiraana way jiraan bal ka han eegno 5 qodob oo waaweyn oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qodobka koowaad inna dima'akum wa amwalakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hada dhiigiina iyo xoolihiin dhexdiina waa ka xaaraan sida maantaba yowmul xaram oo to yowm carafa ahayd leen guriguna waa gurigii ilaahay waa baytullaahi waa xaraam
shahriguna waa dulxija oo waa xaaraam xurmay leeyihin xurmay leeyihin oo dagaal lama ogolo waxba lama ogolo ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 minha 4 xurum tugaati afarta ay ku jirtaa awal qodob nabigu saxaabada u sheegay maxay ahayd sallam war dhiigiina ha daadinina la zawaalu dunya dhulka oo zuula ahwanu cala allahi min qatli imri'in mu'min mu'min dhiigiisa gardarro lagu daadiyo waxa ilaahay uga haysano uga hawlyar uga fudud dhulka oo dhan oo zuula inuu rogo marka maanta waxaan uga faa'iideysanaynaa walaalaheena muslimiinta ee buuhoodle iyo sool iyo sanaag dagaaladu ka dhaxeeyaan ee dhiiga muslimka cidlada uu ku daadanayo inaynu baaqi nabigeena halkan aynu ka dalno joojiya oo ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala bishanu ku jirna bishuna waa xaaraan xilliguna waa 10kii dulxija dhiiguna waa xaaraan hal la joojiyaan leenahay haddaanu idinla gacmaha iyo jirkaygu soo gaari waayey carabka iyo qalbigaana xanuunaya oon idiin soo diranayn ilaahay idinka baryeena dhiiga muslimka ilaahay buu kala qaboojiyo inta ku guda jirtana waan u ducaynaynaa ee khayrka iyo sulxiga inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la qabto inta is haysatana ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu qalbigooda ka zuuliyo dhiiga muslimka ee la daadinayo kar iyo kurbad bay nagu haysaa ilaahay baa nagu og wadan kastoo muslim ahna dhiiga ka daadanaya taasoo kale ayaan ka qabnaa ko laba wuxuu yidhi wa amwaalukum calaykum xaraam xoolaha dhexdiinuna waa xaaraan dhexdiina ee ha xalaalaysanina innagu markaa waxaynu naqaanaa xoolaha aynu qofka khaaska ka qaadano ama bakhaar iyo dukaan ka qaadanaynu xaaraan u naqaanaa waana xaaraan waa sax hantida guud ee la wada leeyahay ummadi leedahay iyo dowladuhu ay leedahay naga wada dhexeeya taataabashada la taataabtaa cid gaar iska qaadanayso fariidnimaynu naqaanaa doqon uma naqaanaa xaaraan iyadna waa xaaraan ina dimaa'akum wa amwaalakum calaykum xaraamun waa tallaabadii kuwada nebigu sheegay sal l slam abad nin buu nebigu zaka u diray maalin sal slam ka soo aruuri buu qabiilkaa zakada ninkii reerkii buu tago zakadii islaamka keena buu yiri xoolihii baa la soo saaray dadkii baa zakadii laba u qaybiyey ninna isaga in bay hadiye u siiyeen intaadaa leh intaana nebiga u geeyey waa zakadii bay yidhahdeen sal allah slam isagoo wada labadii buu nebiga u keenay sal slam muu qarin dhexda kulamuu dhuuman wuxuu yidhi intan anaa hadiyad la ii siiyey buu yidhi intanna waa zakadii aad ii dirtay muxuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigoon looga baran dadka inuu hadalka ku adkeeyo raxiimun ra'uuf ahaa mowqifkaa maalintaa keenay inuu qarsan waaye wuxuu yidhi afalaa jalasa axadukum fii beyti ummih axadkiin guriga hooyadii buu fadhiisto bal haan arko in hadiyad la siiyeeyo anaad noo shaqaanu kuu diranay macnaha mas-uuliyaddaad hayso darteed xil baad haysaa khidmaad ku jirtaa shaqa muslimiin baad haysaa qalin haddii hadiyad lagugu keeno inta aad shaqada haysid inaad geysaa wasaaradda maaliga oo tada qalinkaasa macamuus haddii lagugu keeno iyo gooshaala xalaal kuguma aha salaadaad ku tukataana xaaraan baad xidhan tahay waanu ku fatwoonaynaa waan gartay markaad ku xidhan tahay maalintaasee lagugu keeno dan muslimiin adoo u haya lagugu laaluushay adigana aad hadiye u haysatay ama hadiyad waxay doonaan hadiya xataa hadday kugu noqoto intaad qaadi waxaad tirada anigu malihi intaan xilka hayay ayaa la keen xilka markaad ka baxdid eed gurigaagaad fadhidid wax allaale wixii lagugu sharfo ee lagugu qiimeeyo qaado xalaal bay kuu tahay ma fahamsanahay noocaasa ma u fahamsanahay diinteen maynagu dhex faafsan tahay fahamkaasi waa dardaarankii nabi alayhi salaam ina dimaa'akum wa amwaalakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada labadaa ninkii sheekh xadiiskii ninkii seeraar uu ku dhacay leebku way yidhaahdeen hanii'an lahu biljanna ay asxaabtu yidhahdeen waxaan u hadiyey hanii'an jannuu helay maadaama uu gacan gaala ku dhintay isagoo jihaad ku jira uu nebigu yihi naartuu gelaya sababtoo ah hantidii muslimiinta qaniimadii intaan la qaybin go kala baxay waa go ya uu ku waayay jannada wayna fahnaa wayna ka sheekaynaa diinteenu sidaa ay tahay diinteenu wayna ummadda u sheegnaa madax iyo mijabo inaan uxintole u sheegnaa oo waxay nagu ceeb ah dareen xanuun ahna igu reebahaya inaan maanta maqlo lagu yidhahdo prime ministerkii yahuud ahaayee joogi jiray israa'iil prime ministerka u ahaa waxaa lagu arkay laaluushuu qaatay iyo xoolo uu isdaba mariyey ayay maxkamaddii ku xukunto maanta jeel buu ku jiraa elmort awe yahuud wuu xidhan yahay maanta waa madaxweyne waa prime ministerkii waddankaa dhan
واليهودي لما إذا حما ماشي أي كجارسيسين الدنيا ظلم يجوميسي كجرتي أيا وحنا وقولين إصدبه إنه على الإسلام مريم إن استوى مريم ما كل عدد كيف مسلمين ما حال مسلمين تكون داعي مركب ما حي مسلمين إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا دردارة كنا محمد صلى الله عليه وسلم وحاول مدوح والبأتو حلال وقطع والبلارس واللحو هنتلا دعو وحول بلق هذا نيا شيخ سياسة دي ضدك سياسة دي بزنس يسكو بدش هذا إلهي ما نقدم بين ألم يعلم بأن الله يرى وكده لكن هو ألم يعلم بأن الله يرى ميانو أغين إنه إلهي أركي إنه إلهي سبحانه وتعالى أركي حديث النبي صلى الله عليه وسلم جركي كبها حاران والنار أولى فالنار با أيا أم ظن قيسو أيا أم حتى القيسو أي نبي قلت المام صلى الله عليه وسلم مركا إنه كقاعدة ما أنت حجة الوداع وأمض وحى أي لا هي أمض كوضة دحايسة هل لقى حشوده هل لقى بسبسو أكتين هكذا كورنادو كأمض وحى أي لا هي كبرارية أكتين هكذا كورنادو عاقل يا سلطان يا شيخ يا وداد يا ورلا يا أقوياء يا دلير يا دمربا هاو أركان هانتدا أمض إلا سقل دم لو قادنيو إني دم بتاعي فرطة إنكو فيكم جزاك الله خيرا شيخنا عاد بدو ما تسنتهاي وقتك برنامج كنا قد عدرتيد بينو انت هلكا ku joojsan insha Allah xalqad kale ayaynu halka ka soo doona daawadayaal hadii alla yiraahdo sheekhu si aad u qurux badan buu inoo kaga waramay amalada xajka la soo qabanayo iyo khudbadii ugu dambeysay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam maalimihii xajka u jeediyay iyo qiimaha ay dadka muslimiinta u leedahay marka hal qodob buu ka soo qaaday shan qodob insha Allah oo yiri sheekhu waynu ka taaban doonaa xalqadeena dambe ama barnaamijyadeena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa hadii alla yiraahdo intaasina ku soo gabagabeynaa barnaamijka diinta iyo nolosha toddobaadkan waa aniga Cabdullaahi Beershi ah iyo Sheekh Almiso barnaamijka aynu marti ugu hayn iyo kamaradii isku dubaridka